ninka jecel in arsaaqada loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiidhiyo buu rasuulku yidhi rasiqa in laynoo waasiciyo ma doonayno bal ninkii rasiqa in loo waasiciyo doonayo gacanta taag laakiin xagee ka doondoonnaa iminka innagu meel kale raximkaaga xidhiidhi aabbaha hooyada adeerka abtiga habar yarta eedada ilma adeerada walaalaha kuway dhaleen xidhiidhi lacag dadka laguma xidhiidhiyo lan tasicu nnaasa biamwaalikum walaakin wasicuuhum bibasti alwajhi wa xusni alkhuluq buu nebigu yidhi dadka lacag laguma deeqa buu nebigu yidhi lacag dadka lacag kuma wada gaadhi kartaan dadka lacag kuma wada raalligelin kartaan laakiin dadka waxaad ku deeqdaan buu rasuulku leeyahay wejiga furan iyo dabeecadda wanaagsan wejiga furan iyo dabeecadda wanaagsan dadka lacag laguma wada deeqi karo khilaafadii cumar bnu khadaab radia allaahu canhu baytalmaalkii bay lacagtii halkaa noqotay maxaa ka yeella dadka u qaybiyey buuhi lacagta waa la qaybiyo haddana way hadhay jumco walba markii laga baxa salaada jimce dhallinyarta iyo dadka masaakiinta iyo ducaafada lacagta wada siiya buu yidhi cumar cabdiraxmaan bin cawfa hadloo yidhi yaa amiira almu'miniin baytalmaalka wixii lacag ku jiray haddaad tidhaahdo wada bixiya ilaahay nooma keena balaaye hadday balaaye berri timaaddo maxaan gaashaan ka dhigannaa iskaga difaacnaa buu ka yidhi markaasuu yidhi cabdiraxmaanow carabkaagaa shayddaan baa ku hadlaya buu yidhi maanta laqananii allaahu xujatahaa wa waqaanii sharahaa buu ka yidhi hadalkaa aad tidhi xujadiisa ilaahay baa ii laqinay balaayada soo socotana sharkeega ilaahay baa iga badbaadiyo naga badbaadiye balaayada iyo masiibada imanaysa waxaan u diyaarsaday maad garan buu yidhi aan u diyaarsannay maya nebi maxamed wuxuu u diyaarsaday baan u diyaarsannay buu yidhi waa maxay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebiga haddaan haysanno balaaya nagu dhici mayso balaaya noo iman maysa buu ka yidhi waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib sayidina cumar faaruq aayaddaasuu akhriyey aayaddaasaan akhrisanaynaa oon haysannaa haddaan ilaahay xadhiggiisa haysanno oon iimaan iyo taqwad kaamila aan leenahay cidhiidhi kastoo nagu yimaada meelaan ka baxnaa ilaahay noo yeelayaa arsaaqadana meelaan ka filin baa ilaahay naga siinaya silatu raxim raximkoo la xidhiidhiyo arsaaqadda way siyaadinaysaa istikfaartuna arsaaqadda way siyaadinaysaa faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil الsamaa'a calaykum midraara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفرت هذه للي مادو أرزاق دا إلهي واسعنا يا تقوى دي ما أرزاق دا الزيادين ستقوى دي توكل حد إلهي لا تلسارتنا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا بالنبي قولي هذا إلهي تلا ودي من إنسان تلا سار الشدي إلهي حقه ولها إلا تلا سارته سدا شنبرها وقوديا إلهي نيو قود لها برسولك يقولي شنبرتو صباح دي وحي كبحي ساقوري يدو على شيدو أي مرنتهي وحي سوى نغطى يدو على شيدو أي بوحدو دكان كما شغيسو بيرنا ما فلتو حول ما دقتو يا أرزاق إلهي بأرزاق توكل أعماشاasi haddii jirhkeenna ay ka soo fusho bay culimmadu leeyihiin nolosheenna adduunyada markaa waxay noo noqonaysaa janno ku sug maanta muslimiintu markaad eegto noloshay ku jiraan janno ku jiri maayaan cadaab baa ku jirnaa maanta muslimiintu adduunyada dusheeda dadka cabsanaya maanta waa muslim dadka qaxaya waa muslimiin dadka lalaynaya waa muslimiin dadka islaynaya isdilaya waa muslimiin dadka la caawinaya waa muslimiin dadka loo gurmanaya waa muslimiin dadka xerooyinka waaweyn loo samaystee ee qaxootigooga la qaabilaya waa muslimiin khilaafadii cumar ayaa abaar baa ka dhacday magaalada madiina iyo duleedkayga aryaaf almadiina dadkii miiga ahaa xoolihii baa ka dhammaaday magaaladii bay u soo qaxeen cumar bnu khadaab ree madiinuu tarqiibiyey waxaad haysaan la baxa buu yidhi nin walba wuxuu hayey buu bixiyey markaabaa dadkii oo dhan raashinkii la siiyey
abaartii baa daba dheeraato roobkii baa raagay maalin walba 7 qof baa dhimato la aasa maalin walba 7 qof baa dhimato la aasa markaasuu Umar ibn Khattab warqad buu u diray Umar ibn Aas oo Masar jooga wuxuu yiri adiga jooga wadankii barwaaqada badnaaye wabiyalka lahaaye soo dir macaawano markaasuu soo diray maaragtaana macaawano awr raashin laga soo buuxiyay macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyay haddana abaartii way daba dheeraato roomadiine gaajadii way sii ziyaaday faqrigii uu sii ziyaaday abaartii way sii ziyaaday nin saxaabiya orgi yar soo qabtay orgigii buu qalay hilibba uu ka waayay lafa mooyaane waa muxammadaa buu yidhi uu seexday habeenkii nebigu manaam ku arkay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah dhibaatadaasa nagu dhacday markaa buu nebigu ku yidhi cumar salaaniga gaadhsii laakiin cumaroo sidaan ku moodayay ma noqon waa ku siday ka dhow uu ka yidhi cumar salaaniga gaadhsii horta sidaan ku moodayayna ma noqon uu kacay nin hurdadii buu ka kacay masaajidkii buu yimiday cumar buu u sheegay cumar muslimiintii oo dhan buu u yeedhay saxaabadii fariintaa buu nebigu ii soo diree maan qaldamay bal ii sheega haa waad qaldantaa laga yidhi waad qaldantay maxaan ku qaldamay kolkay abaari ay timaaddo ee roobku nagu yaraado waxau nebi maxamed uuna baray inaan roobdoon salaatul istisqaa inaan tukanno adiguna amiirkii mu'miniintaa tahay amiir baa tahay amiir khaliif baa tahay ilaahay ducadaada waa aqbalayaaye dadka intood u saartid maaragtaane musallaha intood u saarto ha noo ducee bay ku yidhaahdeen markay bannaankii u soo baxeen halka uu cumar uu ka duceeyey halkii isagoo cumar taagan ayaa fadka waxaa laga dhex maqlay oo la leeyahay ataaka alqawthu ya abaa xafs yaa cumar gurmadkii aad dalbatay waa kuu yimiday halkii iyakoo joogaa ilaahay roob ku siiyey salaad bay la yimaadeen xaajadoodii ilaahay uu daboolay macaawana u timiday baahidoodii way sii ziyaaday halkaa maxaan ka fahmaynaa bani aadamku mar alle markay bani aadan iyo makhluuq u jeestaan baahidoodu way sii ziyaadi faaqadu way sii ziyaadi mashaakilkuna wuu sii biirayaa mar kastoo bani aadamku xagga ilaahay u soo noqdaanna ilaahay xaaladooda isagaa markaa bani aadamka bedelaya muslim ayuha almuslim أعمال أحكام وحا إلهي نبينا إنه سو ديبي حدي مسلمين تقرتان نظام كعالم كودن بدلس روب هدين لوايو قال هذا ما أنت للي تكنولوجي بي قادين هرمر بي قادين آلات مهيان أي روب كو كاني كران ولكن نبي محمد إنك وحوي النبري صلاة دي دعاء الروب كان لو كاني ونبي النبري نبي ربنا إسرائيل dagaal buu galay dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku leynayo salaadii casar baa gaadhay markaas nabiga uu sheegay yiraahdeen yaa nabiy allah salaadii casar baa taagan salaadii baa taagan nabigii waxa la yiri fartiisu ku fiiqay cadda salaad ugu fiiqay oo nabi ilaahay doorto rasuula markaas uu adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaana markiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halka noo joog buri la aan gaalada kala baxayno halka ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay wadeen gaaladii bay jabiyeen way ka guuleysteen qaniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guuleysteen ayuu nabigii ku yidhi hadda inoo eega wali halkii bay joogtaa soo ma joogtaha salaada imika tukanayna buu yiri markay salaadii tukadeen buu yiri haddaba imika iska soco iska dhac buu ka yiri horumarka caalamku ma gaadhay imika caalamka horumaray maxaa horumaray birahan qayliya horumaray birahan wax duubaya horumaray bani aadamku ma horumarin maanta hoos baan u dhacnayna ku maanta kaligii meel jooga maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u wiciya daruurtii buu eegay meel bay ku daaday barkad biyay ku dhacday beertii buu yimid nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu wicinayo markaasuu magaca magacii buu u sheegay
magacii uu ka maqlay fadka dhexdeeda daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tagay buu rasuulku yidhi markaasuu yidhi maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yidhi wallaahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adiga uu kuu keenay wuxuu yidhi haddaad i weydiisay beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiyaa midhaheega qayb beerta ayaan ku celiyaa qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi xadiistaas waa wada saxiix waa bani israa'iil ayuu nebigu nooga sheegaya qisas saxiixa muxuu kugu sheegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid haddaad adig iyo ilaahay xidhiirka inii dhexeeya haddaad hagaajisid